Hogan 24 Media ka dhigo wehelkaaga. Bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wanaagsan oo wacan dhamaa baakhiyarta hawada nagala socotay halkani waa Hogan 24 Media kuna soo dhawaada barnaamijkeena faaqidaada ciyaaraha oo hadahan oo kale aad uga barateen barta aan ku leenahay YouTube-ka Hogan 24 Media aniguna waa Cabduwali Mucallim Alto. qodobadaadii ku haya barnaamijkeena saaka waxaa kamid ah Saul Niguez oo ka falceliyo wararka la xiriirinaya Manchester United go'aanna ka gaaray mustaqbalkiisa Victor Osimhen oo iska diiday Manchester United iyo Igalo oo sabab u ah Luis Suarez oo ugu dambeyn afka furtay kana hadlay wararka la xiriirinaya Juventus laba kamid ah saxiixyada cusub ee Chelsea oo dhaawac ku seegi doona bilowga xilli ciyaareedka cusub Antonio Griezmann oo meel saaray mustaqbalkiisa Barca qodobadaas iyo kuwa kale oo xiiso leh ayaan idinku hayaa barnaamijkeena maanta ee daawasho wacan aynu ka horeyna xidiga qadka dhexe ee kooxda Atletico Madrid Saul Niguez ayaa shaaca ka qaaday inuu aad ugu faraxsan yahay wararka la xiriirinaya kooxda Manchester United. xidigan qadka dhexe ee kooxda Atletico Madrid ayaa mustaqbalkiisa u hibeeyay, laakiin waxa uu sheegay in xiisaha uu ka helay kooxda Manchester United ay tahay wax fiican. xidigan 25 jirka ayaa furo u ahaa kooxda Diego Simeone 6 sano ee la soo dhaafay kadib markii uu kaga soo biiray kooxda Real Madrid isagoo 11 sano jir ah. Saul Niguez ayaa Atletico Madrid kula guuleystay 2 Copa del Rey iyo 2 Europe League intii uu joogay kooxda xilli uu 19 kulan u saftay xulka qarankiisa Spain. isagoo wargeyska marka la hadlaya ayaa yiri aad ayaan ugu faraxsanahay inay kooxda Manchester United ama kooxo kale ee aniga ay doonayaan waana war fiican. marka ay kooxaha waaweyn si fiican kaaga hadlayaan waxay la micno tahay inaad shaqo fiican qabanaysay, sidaas darteed waxaan shaqo fiican ka hayaa kooxda Atletico Madrid. markii mustaqbalkiisa wax laga weydiiyay ayuu yiri waxaan u maleynayaa sanadaha soo socda inay u fiicnaan doonaan kooxda Atletico Madrid. saxiixa cusub ee naadiga Napoli Victor Osimhen ayaa lagu soo waramayaa inuu iska diiday ku biirista kooxda Manchester United sabab la xiriira inuusan doonaynin inuu ixtiraam darro u muujiyo xidiga Manchester United ee Igalo sida uu xaqiijiyay walaalka la dhashay xidigan 12 jirka ayaa la xiriirinayay kooxda Manchester United ka hor inta uusan 45 milyan oo euro ugu biirin kooxda Napoli kana tagin naadiga Lille. bilowgii sanadkan Igalo ayaa amaanay soo bixitaanka Victor Osimhen isagoo ku magacaabay mustaqbalka xulka qaranka Nigeria. laakiin walaalka la dhashay Victor Osimhen ayaa sheegay inuu xidiga iska diiday inuu ku biiro kooxda Manchester United xagaagan. waa run inay Manchester United doonaysa Victor, laakiin waxa uu sheegay inuu ixtiraam weyn u hayo Igalo oo waliba uu doonaynin inuu booska kula tartamo xidiga ay isku xulka yihiin, ayuu yiri Andre oo u sheegay Complete Sports. walaalkii aad ayuu u qadariyay Igalo, sidaas darteed ma uusan doonaynin inuu ku biiro Old Trafford booskana kula tartamo xidiga ugu goolasha badnaa koobkii Afrika ee la qabtay sanadii 2019. dhinaca kale xidiga Luis Suarez ayaa u muuqda mid warbeen ku tilmaamay wararka la xiriirinaya kooxda Juventus xilli ay jiraan warar sheegay inuu haatan heshiis shakhsi ah la galay kooxda Juventus. tababaraha cusub ee kooxda Barcelona Ronald Koeman ayaa doonaya inuu dib u dhis ku sameeyo kooxda Barca, waxayna Barca diyaar u tahay inay iska fasaxaan Luis Suarez xitaa haddii ay isaga diri karaan si bilaash ah si ay meesha uga saaraan mushaharkiisa qaaliga ah oo ka qaato kooxda. wararka ka imaanaya Spain iyo Italy ayaa isku raacay in Luis Suarez haatan heshiis shakhsi ah la gaaray kooxda Juventus kuna dhow yahay inuu u dhaqaaqo magaalada Turin, laakiin wararkaas ayaa u muuqda inay yihiin kuwa laga badbadinayo iyadoo uu xidiga baraha bulshada kaga hadlay wararkaas. Luis Suarez ayaa baraha bulshada soo dhigay sawir uu ku jiro tababarka Barca isagoo soo raaciyay qoraal ah marka ay soo baxayaan wararka beenta ah, waxaana sidoo kale soo raaciyay calaamadda okeeda iyo weji qoslaya. dhinaca kale kooxda Chelsea ayaa dharbaaxa xun la kulatay ka hor bilaabashada xilli ciyaareedka cusub ee horyaalka Premier League iyadoo dhaawac ku waayi doonta laba kamid ah saxiixyada cusub ee xagaagan. Chelsea ayaa waayi doonta xidigaha Hakim Ziyech iyo Ben Chilwell kulanka ay Isniinta la ciyaari doonto kooxda Brighton kulankooda ugu horeeya Premier League sida ay sheegayaan wararka. xidiga Hakim Ziyech ayaa Chelsea ugu soo biiray lacag dhan 37 milyan oo euro ayaa bedel ku baxay qaybtii dambe ee kulankii saaxiibtinimada ahaa ee ay Chelsea la ciyaartay kooxda Brighton dhacayna 29 bishii hore. xidigan qadka dhexe ayaa ka dhaawacmay jilibka. wargeyska The Athletic ayaa sheegay inuu Lampard khatar gelin doonin xidigan kulanka Brighton. wararka ayaa sidoo kale sheegay inuu Lampard shaxdiisa ku soo dari karin xidiga 50 milyan ugu soo biiray kooxda Chelsea ee Ben Chilwell. xidigan reer England ayaa ka dhaawacmay ciribta kulankii ay Leicester City guusha ka gaartay kooxda Crystal Palace 4 bishii July
welina wuu ka soo kabanayaa dhaawacaas. waxay soo badan tahay in tababara Frank Lampard uusan kula soo degdegi doonin shaxdiisa labadan ciyaaryahan kulanka ay la ciyaari doonaan naadiga Brighton si ay uga soo kabsadaan dhaawacooda. xidiga weerarka uga ciyaaray kooxda Barcelona Antonio Griezmann ayaa si carale uga jawaabay hadal su'aal laga weydiiyay mustaqbalkiisa kooxda Barcelona oo shaki weyn ku jiray toddobaadyadii ugu dambeeyay. weeraryahanka Antonio Griezmann ayaa la xiriirinayaa inuu isaga tago kooxda Barcelona kuna biiro koox kale inta lagu guda jiro xagaaga suuqa kala iibsiga. xidiga Antonio Griezmann ayaana soo bandhigay qaab ciyaareedkii laga filayay markii uu Barcelona ku soo biirayay xagaagii hore isagoo dhaliyay 9 gool 34 kulan oo horyaalka La Liga ah. Antonio Griezmann oo la hadlayay wargeyska Mundo Deportivo ayaa yiri: "Haa, mustaqbalkaygu waxa uu yaalaa Barcelona. Ma garanayo sababta ay dadku kooxo kale ila xiriirinayaan." isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu yiri: "Waxaan ogahay inaan haysto kalsoonida kooxda iyo tababara Ronald Koeman, sidaas darteed waxa aan ku faraxsanahay kooxda Barcelona. Dhammaanteen waxaan soo qaadanay waqti adag. Waxa aan sugi doonaa xilli ciyaareedka cusub bilaabashadiisa." weli daawadayaal waxaad inaga daawanaysaan barta aan ku leenahay YouTube-ka ee Hogan 24 Media. haatanna waxaad ku soo dhawaataan qaybtii ugu dambeysay barnaamijkeena oo aad ku maqli doontaan wararka suuqa kala iibsiga ciyaaraha. aynu ku horreynay kooxda Barcelona ayaa heshiis shakhsi ah la gaartay xidiga kooxda Lyon Memphis Depay sida uu sheegay saxafiga reer Talyaani ee Fabrizio Romano, laakiin wada hadalla ayaa weli socday ku saabsan qiimaha weeraryahanka. tababaraha cusub ee kooxda Barcelona ee Ronald Koeman ayaa 26 jirkan qandaraaskiisu dhacayo waxa uu doonayaa inuu ku xoojiyo weerarkiisa. Ronald Koeman ayaa culays saaraya siduu ku heli lahaa Memphis Depay kaas oo uu ku soo tababaray xulkiisa Holland. ciyaaryahankii hore ee Manchester United ayay u badan tahay inuu ku kaco lacag u dhaxayso 20 milyan ilaa 30 milyan oo euro. kooxda AC Milan ayaa si rasmi ah u xaqiijisay inay dhameystirtay saxiixa da'da yar ee aadka loo qiimeeyay Sandro Tonali kaas oo ay kala soo wareegtay kooxda Brescia. AC Milan ayaa Sandro Tonali oo lagu naanayso biirlaha cusub kula soo wareegtay qaab amaah ah iyadoo ay dooq u haysato inay si toos ah ugula wareegto 15 milyan oo euro. xidigan Sandro Tonali ayaa tijaabada caafimaadka ku baasay. kooxda AC Milan waxay saxiixiisa ku garaacday kooxo waaweyn oo ay ka mid yihiin Inter Milan, Manchester United, Borussia Dortmund iyo kooxo kale. dhinaca kale kooxda Arsenal ayaa waxay bartilmaameedsanaysaa xidiga Hussein Aouar oo ay doonayaan kooxaha Manchester City, Juventus iyo PSG kuwaas oo dhammaantood doonaya saxiixa xidiga qadka dhexe. Arsenal ayaa ilaa haatan xidiga ka gudbisay dalab lacag iyo xidig ah iyagoo miiska u saaray xidiga qadka dhexe ee Gundosi. laakiin agaasimaha kooxda Lyon ayaa Arsenal u sheegay inay diyaar u yihiin inay ka iibiyaan Hussein Aouar haddii ay miiska saaraan xidiga Pierre Aubameyang iyo lacag. wargeyska ESPN ayaa sheegay in kooxda Manchester United ay horumar xooggan ka sameysay dhanka mushaharka iyo lacagaha ee ay ku doonayso xidiga garabka uga ciyaaray kooxda Borussia Dortmund iyo xulka qaranka England Sancho. ciyaaryahanka Sancho ayaa isha ku hayay inuu u dhaqaaqo Old Trafford ka hor inta aan la gaarin October 5-teeda, waxaana heshiiska uu haatan ku tiirsan yahay in kooxda Manchester United heshiis kala gaarto Dortmund qiimaha uu ku fadhiyo ciyaaryahanka. kooxda Jarmalka ka dhisan ayaa ku qiimaysa xidiga Sancho 120 milyan oo euro, balse kooxda Manchester United ayaa aaminsan inaysan lacagtaas macquul ahayn iyadoo adduunka saameeyay xanuunka faafa ee coronavirus. kooxda ka dhisan horyaalka Mareykanka ee Nashville ayaa ku dhawaaqday inay dhameystirtay heshiis amaah oo ay kula soo wareegtay weeraryahanka u dhashay waddanka Venezuela ee kooxda Benfica, Jhonder Gades. dhinaca kale xidiga Lacazette waxa uu doonayaa inuu caddeeyo mustaqbalkiisa Arsenal. 29 jirkan ayaa waxa uu uga harsan yahay qadaraaskiisa 2 sano waxaana lala xiriirinayaa kooxo dhowr ah. balse kooxda Arsenal ayaa si aad ah u doonaysa inaysan lumin xidigaheeda Aubameyang iyo Lacazette. labaduba waxa ay doonayaan inay sii joogaan xilli ciyaareedkan iyadoo mid ka mid ah uu saxiixay heshiis 3 sano ah oo la filayo in lagu dhawaaqo maalmaha soo socda. dhinaca kale Daily Mail ayaa qoraya tababaraha Liverpool ee Jurgen Klopp inuu doonayo inuu la kulmo Wijnaldum si uu ugala hadlo mustaqbalka ciyaaryahanka qadka dhexe. ciyaaryahankan heerka caalami ee Netherland waxaa doonaysa Barcelona. qandaraaskiisa Anfield ayaa dhacaya xagaaga soo socda. wuxuuna 29 jirka dib ugu soo laabtay Liverpool kadib waajibaadkii qaran. balse haddii uu ciyaaryahanka ka tago naadiga Liverpool waxay u dhaqaaqi doontaa inay soo xirigeliso xidiga qadka dhexe ee Bayern Munchen, Thiago Alcantara.
dhinaca kale kooxda Barcelona ayaa lagu soo waramayaa inay u dhaqaaqday daafaca Arsenal ee Hector Bellerin si ay ugu buuxiso booska Nelson Semedo, waxaana qoraya wargeyska Diario Sport. kooxda Barcelona waxa uu furan inay iibiso Nelson Semedo haddii ay helaan dalab macquul ah oo ay kaga yimaado kooxaha kale. xidiga Arsenal Bellerin oo 25 jir ayaa soo maray akademiyada kooxda Barcelona ee La Masia, waxaana si joogto ah loola xiriirinayay inuu ku laabanayo Camp Nou. ugu dambeyntii goolhayaha kooxda Paris Saint-Germain Alphonso Areola ayaa ku biiray kooxda Fulham isagoo qaab amaah ugu biiray. 27 jirkan ayaa amaah ku joogay sanadkii hore kooxda Real Madrid, waxa uuna u saftay 4 kulan oo La Liga ah. waxaa halkaa inoo eeg barnaamijkeenii saaka oo aan idiin soo gudbinaya aniga oo Cabduuli Macalin Maalto. haddaba si aad u hesho barnaamijyo xiiso leh iyo wararkii ciyaaraha ugu dambeeyay fadlan subscribe saar gabalaalkana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya hela barnaamijyadeena. hana hilmaamin inaad la wadaagtid asxaabtaada adigoo sheer garanaya muuqaalkan. waxaan idin leeyahay waa inoo kulanti dambe iyo barnaamij xiiso leh. fi amaanillah.